Noloshu waa halgan, cid kastana waxay ugaga baahan tahay adkaysi iyo dadaal si uu u gaaro hadafka nolosha ka leeyahay. Saaxiib wanaagsan haddii aad haysato waa qayb ka mid ah sababaha kuu horseedi karto inaad guulahaaga ka midho dhaliso. 2017 waxaa isbaranay saaxiib aad u qiimo badan. Halkaas ayaan isku deegaan iyo isku waxbarasho ka noqonay. Waqti weliba mid ka mid ah goobaha madaxdegsiga loo aado, sidoo kale masaajidda iyo weliba goobaha shaqo ayaanu ku ballami jirnay si aan u sii xoojino saaxiibtinimadeena, weliba ka midho dhalino hadafkeena waxbarasho. Halkaas ayay ka dhalatay saaxiibtinimo qoto dheer oo ku salaysan wax wada qaybsi, isxiriirin, xog isdhaafsi, is-ixtiraam iyo walaaltinimo. Waa saaxiib aan isla soo marnay halgan waxbarasho oo aad u dheer, nolol adduun nooc walbo. Waa shakhsi dadaal, dulqaad iyo ixtiraam badan. Waa saaxiib wakhtigu nagu yaraado markaynu wada joogno, isagu waxuu ku adkaystaa inuu wax iga kororsado, halka aniguna aan ku adkaystay inaan wax ka barto. Guuleed Cali Maxamed, kuna magac dheer magacii hirgelay ee Suula, waa saaxiib iyo walaal intaba. Waxaa ognahay in qof kasta uu leeyahay saaxiib, ha yaraadaan ama ha badnaadaan. Haddaba su'aashu waxay tahay, saaxiib noocee ayaa u baahan nahay si aynu guul uga gaarno halganka nolosha jiro? Dadku waa guutooyin kala duwan, waa kala dan. Laba kasta waxay isku doortaan siday isugu dhow yihiin dabeecad ahaan iyo habdhaqan ahaanba. Dadku waxay u kala qaybsan yihiin laba qaybood oo waaweyn. Qaar waa kuwo ku saaxiibay xumaanta iyo kuwo ku rafiiqa iskaashiga iyo wanaagga. Imise qof ayaa xumaan kaga badbaadeen keliya saaxiib wanaagsan oo ay la rafiiqeen? Haddaba daawade, adigu ma leedahay saaxiib wanaagsan oo si daacad u rafiiqdeen? Sidoo kale haddaa leedahay, imise sana ayaa isla joogtaan?